السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكي حل قنت ذاها قيس عبد الله كاري مرقاتي النول عقل كيسكم التريس وكاري قير كوريحة لقطة حل قنت ذا ميديا عيار مسوقل وانو اكتهين مدحا افران مانتو وكلا مدحا افران ارين دق هانا دي هيا دق warkii ugu dambeeyo degdeg aan idin haya hadda ka dhacay magaalada Muqdisho dhowr war oo kala duwan aan idin haya oo kuwa farxad leh kulligood wax naxdin la maray wax naxdin la waxa uga jira generaalka saaka qarax la eegtay ee magaalada Muqdisho lagu eegtay oo looga aarsanayo ciidamadii maxamed xuseen roob ragii garab istaaga maxamed xuseen roob loo hal loo dilayo oo generaalkaas saaka qarax loo dhigay aan idin haya waxaan idin haya xildhibaanadii wararkaan idin haya ayaan idin sheegaya idin dul maraya marka u horeysa xildhibaanadii laga soo doortay Garbaharey oo kitaaba gacmaha ku wata oo xalana hor taagan waa idin haya warkooda xildhibaanadii laga soo doortay Ceelwaaq oo Axmed Maxamed Islaam oo xalaasha ah oo Ceelwaaq laga keenay oo la dhaashana waa idin haya oo hadda la dhaashay oo lagu dhaariyo hotel Dikaala dhexdiisa waxaan kaloo idin haya general كساكي قرح على قولة أكتي أو قربكي محمد حسين روب لها رجي بدبادة قرنا كم دها أو قولة أكتي قرحنا وينها هي فاهنا ويكها هي يقول هذا لقطة الريحة إن ده وأمر كذي قلبتي ما ده حي فرن مانتي وعن كلام دي هي الله بدي حرق لقو قبل لها دور شوي كبر الصبح ولا ديار شيء أو حالنا أقل كسرة يا أقل كي هو صلبه ولا ديار شيء xildhibaanada bariisna bada ay ku tagayaan hoolalkoodii oo diyaarsan gudoonka iyo gudoomiye ku xigeenada labada aqal lagu kala dooran doono bari warar farxadaan idin wada warka ugu horeeyaan idin galaya magaalada Muqdisho maantay waxa lagu dhaariyay dadkii xildhibaanada ahaa oo laga soo doortay Ceelwaaq oo Maxamed Axmed Islaam uu soo doortay ayaa lagu dhaariyay maanta hotel Dikaala saacadan ay la hadlayo waxyar oo ka hor ayay maaragtay ay dhaartoodu dhacday waxaan kaloo idin hayaa xildhibaanadii laga keenay Garbaharey oo ayakana kitaab quraan wata oo dhahaya nadaarsha qofkay arkaan oo ku hor yimaadaan nadaarsha leeyihiin aan idin hayaa ayakana warkooda oo xeradii xarano hor taagan qofka dadka shacabka ku hor yimaadeen waxay leeyihiin walaalo kitaabka nagu dhaarin alla maxay joogaan markaas lugta ku riixa idan dhalaya lugta ku riixa walaalo nadaari qofkii ku hor yimaado shacab walaalo nadaari hada dadkii shacabka way xildhibaanadii xalaasha Garbaharey ayaa nadaari waa xildhibaanadii calankii Jubbaland ayakoon intay maaragtay intay cuqdi iyo calool xumo ay u hayaan intay ka wareegsadaan calankii galmudug ka surta meeshii Garbaharey la dhigi jiro Jubbaland kamid ah sidaan wada ognahay Jubbaland waxa xukuma Axmed Maxamed Islaam ku riixa lugta maanta Axmed Maxamed Islaam ayaa Jubbaland xukuma madaxweynena ka ah bal Axmed Maxamed Islaam xildhibaan uu soo magacaabin golaha shacabka dhaxtago lafta garee ninka la yiraahdo xildhibaan aan ka imaan koonfur galbeed golaha shacabka dhaxtago qoor ninka la yiraahdo oo galmudug madaxweynaha ka xildhibaan uu soo magacaabin golaha shacabka dhaxtago xildhibaanna ka noqdo Puntland ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dan xildhibaan uu soo magacaabin golaha shacabka inta gala xildhibaanna ka noqdo Ali Guudlaaw ninka la yiraahdo xildhibaan uu soo magacaabin golaha shacabka inta galo xildhibaanna ka noqdo hadday sahlanaato oo nimanka gada laga soo magacaabay ay xildhibaan noqdaan niyow anigaas xil guntada saaka ila hadlaya saaka iga qoray inta tagaan xildhibaanaha oo baarlamaankana dhex fariisanaya laakiin baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa kuraasta in la badiyo dadka shacabka intii hadda taqaana iyo intii aqoon lana kuraas badan loogu soo dar meesha qof walba iska soo fariisto hadiiba nin walba xildhibaanku intuu iska yimaado iska fariisan kara lugta ku riixaydan dhalay ku riixa saako kala madaxana furan ku riixa hadduu nin walba xildhibaan iska noqon karo oo nin walba soo raba xildhibaan ku imaanayo waxa weeye anigaas xil guntadaana saaka xildhibaanaha iga qora haddii Axmed Maxamed Islaam oo Jubbaland xukuma oo saddexda gobol isku haysta xildhibaanada uu soo doortay xildhibaan ahayn ay galaan meeshaas ama ay xildhibaanna noqdaan waxa weeye xildhibaanada Soomaaliya oo dhan lagu noqonayaa dib loo soo dooranayaa xildhibaano cusub sababta idin leeyahay waa idin cadeynaya saaka ma ahan hanjabaadiga ma aha bootanayga ma aha laakiin qaabka siyaasadda saxdaan in la hadlaya Axmed Maxamed Islaam wuxuu madaxweyne ka yahay saddexda gobol oo la isku yiraahdo Jubbaland xaq dastuuriyan wuxuu siinayaa inuu xildhibaanada soo doorto dastuurkii fid iyo ay wada qoreen wada tashiga qaran
ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha ay ku jireen waxaa ka mid ahaa labada deegaan doorasho oo doorashada lagu qabanayo mid ka mid a amni darra hadday ka dhacdo ama siyaasad la siyaasadeeyo in meeshii ay ka jirto nabad uu ku qabsan kara maamul goboleedkaas ay ku qabsan karaan laakiin uu ku soo celinayo fiid uu soo ogeysiinayo fiidna ay go-aankaas la gaarayso nimanka set la yidhaahdo oo gobollada ka ah ii sheegeen kasoo doorta maamul goboleedyada ayaku niman la dirsado waayo maamul goboleedka loo dirsadaa laakiin nimanka awoodda leh oo dowladda soo dhisay oo ra'iisul wasaaraha awooddiisoo kale leh oo madaxweynayaasha awooddoodoo kale leh waa nimanka fiid la yidhaha shahaada bixinayo oo geella nin kaliya madaxweynaha u yahay nimankii uu xilka ka qaaday oo cayshay mar hore oo ayaku meesha ka tegey hadday xildhibaanna ka soo dooran karaan garbahaari anigaas xil guntadaana xildhibaanaan ahaa saaka iga qora ku riixa lugta xildhibaanaan ahaa saaka iga qora xil guntada waa xildhibaan annagu waan aadayaa meeshii waxaan idiin hayaa in xildhibaanadii ceel waaq laga keenay la dhaarshay oo hadda kitaabkii la wada marshay hotel dikarana lagu dhaarshay barrina ay ka qayb geli doonaan doorashada lagu dooranayo guddoomiyaasha baarlamaanka aan idiin hayaa oo xaqiiqa oo lagu dhaarshay hadda muddo 20 daqiiqo ka hor 30 daqiiqo 40 daqiiqo ka horeysa lagu dhaarshay hotel dikar waxaa jira ciidan uu soo diray maxaa cabdullaahi farmaajo oo foodo ah oo tegey xalale hadeertaan saacadan ay la hadlayo ciidankaas ciidan badan maahan waa nimanka foodada xamar u joogoo la yidhaahdo duufaanna amisoma waxay tiri where are you come from bal hadalkayga u fiirsada where are you come from are you from Mohamed Hussein Roble no we are madaxweynaha president of Somalia maxaa cabdullaahi farmaajo no he's already expired he sit in a village Somalia in the election we know the election no Mohamed Hussein Roble don't go back please bahashara xabada la wada haystaa waa la iskala baqayaa moogtaa baasha way laabteen nimankii gafurada waa if you don't go back now we'll see you what happened way laabteen nimankaas duufaan meeshana fooday u tageen xildhibaanada nimankan yiraahdo oo gada ka yimid waxa la yiri ku foodeeya meesha la taga sida kuwa kale isugu dhaqan gali laakiin rag u joojinaya ma joogaan meesha maxaa Hussein Roble waa ninka asagoo la dagaalay maxaa cabdullaahi farmaajo futada dhulka ugu dhuftay waa ninka asagoo qabiil u kacsan yaa qabiilkiisa u yeeran futada dhulka ugu dhuftay waa ninka asagoon wadankii dagaal gelin doorasho gaarsiiyey mahad celin ilaah baa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala oo guusha iskale oo na gaarsiiyey laakiin mahadda ugu ballaaran waxaa iskale maxaa Hussein Roble iyo tiimkiisa ragga garab jooga kala saari maayo wasiiro kala saari maayo maaragtay generaallo siyaasiyiin ciidamo kulligiin madaxa korkiisa noo saarantiin waxaa waddanka ka badbaadiseen dictatorship waxa lagu yiraahdo afka qalaad masiibo ugu soo socotaad naga celiseen masiibo nagu soo socotay oo waddankanaga qabiil u celin lahayd oo qarannimadana dhaawici lahayd ayaad naga celiseen marqaati ilaahay adinkaan idiin qabsanayaa ummadda Soomaaliyeed markii dowladda Maxamed Siyaad Barre waddanka xooga ku haysata ay dhacday ummadda Soomaaliyeed cuqdigii kala galay iyo meeshay kala aaday adinkaan marqaati idiin qabsanayaa ku riixa lugta maanta idan dhalay ku riixa marqaati ilaahay idiin qabsanayaa ummadda Soomaaliyeed way kala tagtay cuqdiyaa kala galay iyadoo wixii la ilaabay oo cabdiqaasim salaad xasan la soo doortay وحوغا وحون ميل غارسيي عبد الله يوسف لا سو دورتي وحون ميل غارسيي شيخ شريف لا سو دورتي وحون سي دقاجي حسن شيخ لا سو دورتي سي دقاجي كو ميل غاركي نوغا ساراي maxaa cabdullaahi farmaajo la islaha waa min mahdiya oo ilaahay noo keenay oo cirkaas ka soo dhacay meel fiican una gaarsiinaya ayaa dib ula soo laabtay dawladii annagu nugula soo guriya laabtay qabiilu nugu soo celiyay Facebook live una baray ina dadka nagi la gumaadayo na tusa in madaxana laga wada tooganayo aqoonyahanka nagi la wada leynayo na tusa cuqdigana soo galiya Facebook waxa keenay maxaa cabdullaahi farmaajo waa soo gali karna xilliyadii madaxweynayaasha idin sheegay ay joogeen waa soo gali karna Facebook live waana hadlin naqaan laakiin maysa ahayn sidaan oo kale maysa ahayn way ka duunay qoriixa lugta way ka duunay cabdullaahi yuusuf aad buu u maaragtay wadanka Soomaaliya xabad uga riday laakiin xabad uu ridaayay in filada Soomaaliya hal mar tago cabdullaahi yuusuf ka go'nay amxaare iyo balaayi iyo dad argoosanayo oo taariikh hore 77 naga dhaxaysa oo taariikh 77 ku argoosanaysa oo nin la yiraahdo Algeed oo ra'iisul wasaare ka ahayn oo ra'iisul wasaare ka ahaa oo cuqdad iska qabo qabiil gooniya oo hawiya cuqdad u qaba waa la kala aarsanaya meeshaas midadka iyo dhaawac iyo xisaab ma lahayn genocide dagaalada la yiraahdo genocide oo ka dhacay Afrika meesha la yiraahdo Rwanda
muqdisho ka dhacay waagaas waa la xisaabinayna genocide waxaa dhacday dad meydkoodii lasoo qaadi waayo femila 7 beri masaajidii ilaahay oo lagu qoray allahu akbar waa dhamaatay allahu akbar waa isku dhamaataan taagnayn wax walbaa soo taagnayn oo soo aragnay subxaanallah ilaahay subxaanahu watacaala dad islaam naga dhigan allahu akbar yelan ay ku qorta amxaaradu masaajidka tawfiiq ku yaala indhahaygan anaa saaray allahu akbar yelan ay ku qorta amxaaradu bal fiiri raggii keenay raggaas ayaa jooga oo welina jiraqsanaya oo dhaaranaya ayadoo saas ay tahay dadku way fiicnaayeen way calool fiyoobayeen dowladnimaa la raadinayay cuqdiga wuu yaraa saan ma ahayn qabiil looma kala dilaacayn qof walba muqdisho wuu kusoo laabtay qabiil walba ka kooban laakiin hadda now nin walba wuu ka guurayaa muqdisho dadka deegaanka keliya dadkii deegaanka u lahaa cuqdigii la geliyey iyo xaasidnimo iyo xuqdigii lagu reebaa nin walbaba ogyahay nin walba wuu cararayaa hadda runtaan idiin sheegaya waxaana ka dambeeya oo sababay maxaa cabdullaahi farmaajo ku reexa lugta inuu maanta isagoo madaxweynaha oo ummadda soomaaliyeed madaxweyne u ah oo kursigii soomaaliya ugu sarreeya fadhiya beeshiisii 2 xildhibaan mid foodaa iyo mid maamul goboleedkii saxdaa uu soo dhisay oo muqdisho isku garbiyaan waa micnaha maamulka cabdullaahi farmaajo aan ka barano wey madaxweynenimadii aan ka barano wey maamulkii fiicnaayo uu noo sheegayo ka barano wey kitaabkii ilaahay uu ku dhaartay oo 14 boqol quraanka uu ku saaray gacanta dadka iyo dalka iyo dad diinta inuu maaragtay uu simayo oo la kala leexsho wey haddaad ilaahay kitaabkiisa aad ku dhaarisay aad ka leexato ka beerto ilaahay subxaanahu watacaala asagaa hadba meel maaragtay lugtaa qaadaba asagaa kaa banjarinaya ilaahay subxaanahu watacaala markaa ilaahay ugu dhaaratid kitaabka jaamaca dalka iyo dadka iyo diintan difaacaya oo aad waxba ka qaban weydid oo aad maaragtay dib u soo celiso ummadaadii ilaahay wuu kula xisaabtamaya ilaahay calooshaada wuu u jeeday subxaanahu watacaala maalintaad aan ra'iisul wasaaraha ka dhigtay maxamed xuseen roble laakiin maada ogeyn inuu kaa badbaadinayo waddanka kaa hor istaagayo doorasho gaarsiinayo waa ninaan sharaxnayn waa ninaan madaxweyne raadinayn waa ninaan dhaqaale raadinayn waa nin laakiin qofkii raba ha soo baxo qofkii rabana madaxweyne ha noqdo aan dan gooniya wadan waddanka doorasho iyo dowladnimo keliya gaarsiinayo wey bal u fiirso hataa shakiya iga geli lahaa roble hadduu yiraa madaxweyne ah waa sharaxana maanta shakiya iga geli lahaa roble laakiin ummadda soomaaliyeed ilaa hadda maxaa xuseen roble kamaysa maqal madaxweynaan ahay xilaan raadinayaana kamaysa maqal kursiga oo hadda ku fadhiyo ilaahu doorasho gaarsii waa lagu daahiyey weliba long time uu rabay inuu ka dhammaado kursigan waa lagu daahiyey hadba meel si looga xagal daacinayo oo looga banjirinayay oo nimankaa nabad iyo nolol yiraa ay u adeegsanayeen wax dhibaato badan oo heerkan kusoo gaaray xil guntade xaqiiqdaad ugu imaanaysaa runtaad ugu imaanaysaa been ugu imaan maysid ilaahay baan ka cabsanayaa subxaanahu watacaala beenna sheegi maayo xildhibaanada idiin sheegaya hadda oo kitaabada wata oo xalano hordhooban xalane meesha la yidhaha hordhooban oo qofkii soo maraba waddada na dhaari dhahaya waa xildhibaanadii garbaharre ka yimid calankii jubbaland qoori waaye xataa xafladii iyo kaamaradii haya xataa qoori waaye calanka jubbaland inay ay meesha ku xirtaan oo calankii galmudug aan kaafi kala dheeri ah oo carre ilaahay ku yaalla oon shaqo ku lahayn oo aan xukumin ku xirtay meesha awalba inay foodo ku yimaadeen waa u jeedaan xataa atleast hadday calanka jubbaland meesha ku xiran lahaayeen amiinkaas ay meesha wax ku dhoodhoobayeen nimanku waa niman jubbaland ha la isdhihi lahaa laakiin adduunka waxay ka gadanaysa jubbaland shaqo ku lahayn yay u adeegayaan marka garbaharey markay maamul goboleed cusuba maamul goboleed cusub miya dastuurka kuma qorna inay tahay garbaharey maamul goboleed cusub ee dastuurka waxaa ku qoran jubbaland wax la yiraahdo in la isku yiraahdo 3 gobol axmed maxamed islaamna uu xukumo ayaa ku qoran dastuurka ninkii axmed maxamed islaam aan soo marina xildhibaan ma noqon karo ninkaan dani soo marina xildhibaan ma noqon karo qorqoor ninkaan soo marina xildhibaan ma noqon karo lafta gare ninkaan soo marina xildhibaan ma noqon karo cali guudlaawa ninkaan soo marina xildhibaan ma noqon karo sidaas weeye maamul goboleed waxa la yiraahdo federal waxa la yiraahdo federalism iyo system waa meeshaan wax ku dhisan yihiin haddayna federalismkii wax ka baran oo calankii galmudug aa meesha isaga xirateen annakaa idiin meerinayna annakaa idiin sheegayna niman maaragtay layska soo diray haddaad tihiin waa inaad dastuurka dib u akhrisaan buugga waxba ma jooge aad ka qaadatiin meelaha madbacdaha lagu gado akhrista buugga waxa ku yaala jubbaland meesha garbaharre meesha ka mid tahaan soo barta haddaa xildhibaan ku noqotiin 16 naas xildhibaan mid ka mid a xataa hadduu noqdo mid ka mid a anaguna xildhibaanaan aha golaha baarlamaanka waa soo aadayaa markaa iga qora saaka waa soo aadayaa xoogaana kusoo gelayaa amisom saa kusoo dhaafteenana kusoo dhaafayaa saaka
amisom saa ku soo dhaafteen iyo fiid saa ku dhaafteen aan ku dhaafaya aniguna xildhibaana noqonaya bal warkiga iga qora saaka haddaan laakiin aad iska laabatiin kolley kaamiradu waa idin qabteen waa idin baranay niman la yaqaanaad tihiin sanadaha dambe aad rajaleediin sanadaha dambe aad rajaleediin kuwa dambe oo soo socdaa rajaleediin haddii kaamiradu idin qabteen oo dadkii shacabka soomaaliyeed ilaa social media ku wareejinayna ilaa shalay dadki waa idin barna hadda intaas adinka faa'iideydii ah niman la yaqaanaad tihiin alla nimankii maxay jabeen nimankii reabtigaa maxay jabeen alla maxay jabeen caliyara cali raggii lahaayo kulli waa isla jabeen caliyara ha kaa saarto dari asagoo hadda soo sheergareynaya arkay ha kaa saarto lugta ku riixa ha kaa saarto dari waa madaxweynihii weli puntland wuu isku haystaa dee karaash ninka la yiraa oo xilka ka qaaday haddeertaan guddoomiyihii gaalkacyo ninka kala magacaabay ma soconaysa daniyaa meesha jooga dari waa madaxweynihii puntland bal ha ka saarta karaash xoogga ha ka saarto ka saari maysaan ku yiri ka saari mayso buudkaan kula tumanaynaa maxaa cabdullaahi farmaajo wixii ka amar qaata ma ahan inaan qabiilkiisa necbahay ma ahan inaan beeshiisa necbahay ma ahan isaga lafihiisa inaan caayiya iyo shaksi ahaantiisa siyaasad oo ku qaldamaan ku dhaliilayaa oo jid xun oo qalloocan kala baxay maxaa cabdullaahi farmaajo xil guntada anoo ana xaqiiqdaa igu imaanaysaa been ma igu imaanaysa runtaada igu imaanaysaa waxaa weeye mar labaad waxaan ka codsanayaa xil guntada youtube kusoo yaaca anugu ayaantan waan ka codsanaye xil guntada youtube lugta ku riixa idin dhalaya ku riixa dadka igu fikirkaan ka hadlaya xil guntada youtube lugta kusoo riixa mar labaad youtube-kaa soo aada soo gala kusoo riixa lugta jamaal nuur weliba lugta kusoo riixa